السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الشرن كيجا وولاشين مريان آدمان السلام يا كل جن آدمان السلام يا أصحاب تحسبي وصبرت آدمان السلام يا ما أنت واحد حد ليا secondary school كا أما school كا إياه هو قران وهي كوبي تمن شركة يهين إلى 16 كا إلى لحية تمن شركة كوبي تمن شركة إلى لحية تمن شركة school كا لكتو أنا جو حنون إنها secondary school UK وحيلها secondary school waxaan maray American waxa la yiraahdaa high school Soomaali ma garanayo waxa lagu yiraahdaa laga yaabaa inay yiraahdaan fasalka labaad baan u maleynayaa ma garanayo laakiin waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka jirta iyo carruurta waxa la soo kulmaa ayaan ka hadlayaa markaas soo dhawaada insha Allah waalidkan ugu talagalay inay fahmaan secondary schoolka waayo inta badan Soomaalidu waalidka ahi may soo dhigan secondary school marka waxa muhiim ah inay fahmaan waxay moodayaan laga yaabaa inay wax iska fudud yahay laakiin waa wax aad u dhib badan ilmuhu markuu primary school ka dhameeyo schoolka hoose way iska ciyaaraan akhriska iyo qorinka lagu baraa wax aad u dhib badan maaha wax iska fudud baa loo dhigaa laakiin secondary school markay bilaabaan waxaa loo dhigaa 11 xiisad oo kala duwan oo aan fududayn marka qof ilmo yar oo marka wax bilaabaya way ku adag tahay waliba yar saminka aad bay u adkaataa laga yaabaa in habeen kasta la yiraahdo homework soo shaqeey ama la soo siiyo wuxuu qorayo iyo wuxuu akhriyo laga shaqeynayo oo aan fududayn marka waalidku inay ogaadaan baa fiican insha Allah marka waxaan doonayaa inaan ka hadlo ka ugu horeeya waxa weeye macallimadu marka hore secondary schoolka jooga ma aha dad aad u waji furan wadad aad u adag carruurta waxay isku dayaan inay controlaan inay wax yaroo small oo aan weynayn bay ku maagaan oo ku qayliyaan laga yaabaa ilmo yar hadduu warqad tuuro ama uu saaxiibkii la hadlo ama uu qoslo inay maanta ku qayliyaan 10 minutes oo galaaska dhexdiisa ku qayliyaan marka qof kasta lagu isqabanaya madax xanuun inta badan madax xanuun ba ku dhaca carruurta secondary schoolka waayo xiisado badan bay dhigtaan macallimada kala duwan macallimadu inta badan secondary schoolka dhaga stress bay iska qabaan laga yaabaa habeenkii hore inay wax ka soo shaqeynayaan wax ma garanayaan khamrigan aad u cabaan UK macallimadaha dadka iyo magaalada degani marka ayagu habeenkii hore intay khamri cabiyeen markay soo kacaan iyagu madax xanuun iyagoo si ay soo shaqada imanayaan marka carruurta ka jaraan carruurta ku qayliyaan aad bay carruurta ugu qayliyaan wax kale oo jirta markay carruurta secondary school ka bilaabaan galaaska waxa la dhiganayaa 3 qof marka 3 qof oo kala duwan oo qof kasta gurigooniya ka yimi qaar stress ka qaba qaar iska edeb daran oo qaylo badan qaar galaaska oo dhan qasaya ku jira marka ilmuhu markuu secondary school ka bilaabo waxa uu bilaabmaa stress isagoo hormoonkiisa isbedelayo jirkiisa isbedelayo oo ilmo carruurnimadii ka sii baxaya oo galaya qof weyn qof weyn soo noqonaya macnaha childhoodkii ka baxaya oo adulthoodkii galaya ayuu secondary school ka bilaabmaa marka markii soo hore isaga hormoonkiisa ka kacsanta oo iska cadhaysan ayuu bilaabaa marka uu habeen kasta work fara badan la soo siiyo oo macallimada ku qayliso oo wax yar oo small lagu ganaaxo soo gabigiisa madax xanuun imanaya laga yaabaa inuu wax yar oo sameeyo lagu maago oo maanta uu ku hayo galaaska oo lagu soo ganaaxo oo aday doona qadada ay diidayaan marka xiisad ka baxdo xiisad kala galay marka waa daalaysa saad u lugaynayso marba xiisad u galayso oo mid kale ka baxayso oo laga yaabaa galaasyadu ay kala fog yihiin oo 10 minutes u jiraan ordayso jaran ka bax ka soo deg hadda doona qadada way ku diidaan waxay koranayaan wax wadada darxad marka ma qadin kartid marka wallahi secondary school wax fudud ma aad buu dhib badan yahay carruurta wax inta badan stress ku rido caarada ku badiyo secondary schoolka marka waalidka waxaan kula talin lahaa maadaama aan anigu soo dhigtay secondary school inay ka naxaan oo aad ugu naxariistaan oo marka guriga yimaado aan ugu qaylin oo carruurta kale aan ku qaylin walaalihii la yiraahdo u naxariista lagu yiraahdo carruurtiina in la yiraahdo goor hore la kiciyo habeenkana goor hore seexdo laguna encourage gareeyo homekiisa inuu goor hore ka shaqeeyo oo iska dhameeyo kooda carruurtu way ilaa badan yihiin laga yaabo in iska ilaa hadhoona galaaska problem uga yimaado inta badan carruurtu waalidkoodu ma sheegtaan inay wax ku adag yihiin laakiinse hadda la saaxiibtaan oo la hoos ula hadashaan laga yaabo inay idin sheegaan inuu hadduu woogu ku adag yahay oo kale inay idin sheegtaan marka hadduu woogu ku adag yahay laga caawiyo fiican in qof loo qabto hadda idinku aan garanaynin qof qabataan hadda taqaanaan ala fadhiistaan ka caawisaan
sidaan loo maagin oo iskuulka loogu maagin ka daranta iskuulka waxaa ka jira bullying badan ama caruurta waa lagu buli garay waa la maagaa laga yaabaa inay iska maagaan iskaga maagaan ama siduu eegyahay ama siduu u hadlo cashadhood gabadhaan dhegeysanay waxay tiri iskuulka aad baa lagu maagi jiray markaan isaga jir ku jira sas baan qaaday waxay tiri hablays uu kay tegi jiro intay dharka iga bixiyaan bay xashiishka iga ridi jireen waxay tiri suuligay madaxa ii gelin jireen markaasay igu flash gareyn jireen waxyaala badan oo problem ka jira haddana inta badan caruurta waalidkooda ma sheegtaan inta badan caruurta qaar baa depression ku dhacaa qaar baa mental health problem ku bilaabmaa because iskuulka pressure badan ka saaran yahay laga yaabo in markasta la maago la caayo oo magacyo loogu yeedho marka waalidka qurbaha degan ama Yurub degan ama America degan wadamadan qurbaha waalidka jooga waxaan kula talin lahaa inay ciyaalkooda aad ugu fiirsadaan baysan jirka iskuulka bilaabaan oo la hadlaan oo isku dayaan inay maaragtay la saaxiibaan oo ogaadaan xaaladooda because inta badan waalidku ma oga xaaladda ciyaalka qofkii markuu soo galo okay ma tahay ma fiican tahay bes qolkiisu xiranaya hadhow aroortiina markuu soo kaco salkaasuu ku baxaya maba arki sidaa marka insha Allah isku day in dhageystaan ciyaalka intaan maanta la qaybsanayay hadda igu cusubtiin insha Allah subscribe haddii horey la joogteen thumbs up insha Allah like saara kulligeen aad baan idin salaamaya aad baa mahadsantihiin maalintu ay idin wanaagsanaato hadda habeen ku jirtaan habeen wanaagsan waxaan idinku leeyahay welcome thank you so much inay daawateen aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh